shada Gondar ee TPLF waxay tusaale u noqon doontaa in qoomiyadda Amxaaradu ay bataatanba araxda ka jabto dhinaca kalena ay banayso garabka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socota in bilowba joogtaan iyo su'aal baan maqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorroona waxa kamid ah TPLF oo dagaal 6 jaha ku qaaday dalka Eritrea iyo dagaal kharaad oo ka socda xuduudda deegaanka Tigreega iyo Eritrea ay wadaagaan iyo waliba deegaanka Axmaarada magaalada Gondar oo gacanta dawladda ka bixi rabtay isla markaana kaabiga ay u saaran yihiin ciidamada Tigreega hooyinka waaweyn ee deegaanka Axmaarada oo qax iyo barakac ka taagan yahay iyo Abiy Ahmed oo taliska ciidamada dalka Itoobiya ku wareejiyay siyaasi afwaarka madaxweynaha Eritrea iyo sababta la xiriidha ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa siyaasi afwaarkiga Eritrea oo tabari ay biday in furimaha hore ee dagaalka uu keeno ciyaalka yar yar 15 sano iyo dawladda Mareykanka oo hanjabaadii ugu weyneyd hawada u mariyay dalka Eritrea kuna eedeysay inay xasuuq baan ka geysatay gudaha dalka Itoobiya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo fashilkii ugu weynaa dhex fadhiya iyo shirkii wada tashiga qaran ee dawladdu ama xukuumadda madaxweyne Mustafa Cajar ay qaban qaabinaysay oo fashil uu ku imaaday isla markaana urur xisbiyadii mucaaradka ee ay doonayeen inay ka soo qayb galaan gabi ahaanba gaashaanka u daruur haddaba maxaa keenay inay gaashaanka u daruuraan ama uu fashilma shirkaasi qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan hadduu eebe idmo waxaana istuuriyaha igula sugan saaxiibkay Faahiye oo ka faarlooda xaaladaha geeska Afrika isla markaana soo indheeyay xogihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo dagaalada lagu halaagsamay ee dalka Itoobiya ka socda Faahiye soo dhow waan dhawahay Santiago haddii aynu ku bilowno Tigreegu waxay sheegeen in dagaal 6 jaha ka badan ay ku qaadeen dalka Eritrea iyo xadka ay la wadaagaan dalkaasi maalmihii ugu dambeeyayna madaxda Tigreega waxay ku eedeynayeen Eritrea inay gabadfallo ka geysteen xuduudda Tigreega iyo dawladda Eritrea u dhaxay ama wadanka Eritrea u dhaxaya bal maxaa u dambeeyay xagee la kala maraya dagaaladii lagu halaagsamay ee ka socday gudaha dalka Itoobiya iyo xuduudda Suudaan iyo sidoo kale xuduudda Eritrea iyo Itoobiya ay wadaagaan Santiago aad ayaad u mahadsan tahay saaxiibada hawada nagala socdana waan salaamaynaa haddaan intaasi kaga tagno ciidamada dalka Eritrea ayaa la sheegayaa in weerar saf ballaaran ah ay maanta ku soo qaadeen dhammaanba jiidda hore ee laga soo bilaabo Takaze ilaa Cirobo dagaal culus ayaa ka dhacay Kuheli Saben Gadane Adiwale Rama Trezona iyo Salambasa deegaanka lagu magacaabo afayeenka TPLF ayaa sheegay in dagaalkaasi ay soo qaadeen ciidamada taliska bariga oo Itoobiya iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan taliska waqooyiga iyo 3 kumaando oo ah ciidamada ilaalada madaxtooyada dalka Eritrea iyo sidoo kale dalka Itoobiya ciidamo ka tirsan liyu booliska Amxaarada iyo maleeshiyaadka Faano oo maalmihii u dambeeyay laga dajinayay ee dalka Eritrea gudihiisa balse ila xogogaal ah oo aan helay ayaa sheegayo marka laga yimaado sheegashadan TPLF in dagaal lagu soo qaaday in TPLF iyadu laftigeeda ay dagaalkan qaaday oo furimahan dhammaanba iyadu saaka ay dagaalka ka furtay gudahana ay hadda ku sii dhowdahay inay u gasho dalka Eritrea arrintan ayaa lagu sheegay in ay imaanaysa kadib weerarkii shalay ciidamada dalka Eritrea ay ku soo qaadeen deegaanka Baadhame halkaas oo ah goobta muranka ugu xoogan uu ka taagnaa 30kii sano ee u dambeysay tan iyo intii xorowday dawladda Eritrea ay ka xorowday dalka Itoobiya waxaa la sheegayaa ciidamada Tigreegu hadda in ay joojiyeen weeraradii ay difaaci ay kaga jireen aan idhaahda dalka Eritrea xuduudihiisa haddana ay bilaabeen weeraro toos ah oo ay ku beegsanayaan furimaha ciidanka dalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada Eritreanka ee aagaasi ku sugan balse waxaa la sheegayaa sidoo kale in kastoo isgaarsiintu aad ay u yartahay Santiago in ciidamada militariga Itoobiya ee aagaasi ku sugnaa kuwa Eritrea ay waxba iska caabin waayeen oo bataatanba furimahaasi ay baneeyeen iyadoo dawladda Eritreana laguba eedaynhayo in ciidamada Itoobiyaanka ee aagaasi dagaalka ka soo galay wixii dhaawacmaba in ay madaxa ka tooganayso waxa kale oo la sheegayaa in diyaaradaha qumaatiga u kaca diyaaradaha miiga ee dronka iyo sidoo kale madaafiicda in dawladda Eritrea ay hadda si weyn u adeegsanayso maadaama aysan haynin awood ay iskaga difaacdo weerarkan hadda TPLF ay ku qaaday waxaana inta lagu darahayaa weerarkan ay TPLF qaaday inuu sabab u yahay kadib markii hub culus ay ka heshay dagaaladii ay ka waday waqooyiga gobolka Wallo gaar ahaan deegaanka Qobo waxaa la sheegay hubkii Itoobiya abid ugu badnaa ee furintaasi lagu waardiyeynay iyadoon xabadi qush ka dheerinay TPLF gacanta la wareegtay haddana ay ku rakibtay xuduudda dalka Eritrea iyo deegaanka Tigreega sidoo kale wararkan helayno waxay intaas ku darayaan in deegaanka Shire iyo Shareero
iyo aagan Salambasa Ramaphosa iyo Arizona iyo aagaasoo dhan inay ka bilowdeen dagaalo TPLF ay wadaan iyo weeraro ay ku kicinayaan ciidamadii Eritrea halkaas ku sugnaa. Waxaad ogeyd Shareero oo ay gacanta ku hayeen TPLF in laga qabsado ciidanka militariga ay ka qabsadeen kadibna ay dib u qabsadeen. Markay dib u qabsadeen ilaa 3 qabale oo dalka Eritrea ka tirsan in ay gudaha halkaas ka galeen. Marka inta aynu kaga imaano dawladda Eritrea wax war ah ilaa iyo hadda kama soo bixin arrintaas ku aadan. Ethiopia sidoo kale kama hadlin, laakiin afayeenka TPLF Getachew Reda ayaa arrintaasi si rasmi ah u xaqiijiyay in asaga weerar lagu soo yahay, laakiin xogtaan helayno waa ay ka bedelanto TPLF xilligan iyada weerar. Marka intaas laga yimaado deegaanka Amxaarada xalay waxaynu warbixinteena ku sheegnay in ay qabsadeen magaalada Adi Arkay oo ah magaalo istiraatiiji ah iskuna xidha magaalada Gondar iyo sidoo kale dalka deegaanka Tigreega. magaalada Adi Arkay xalay maqribkii ay ka soo dhaqaaqeen TPLF-tu waxa ay qabsadeen meel la dhaho Chawpara iyo sidoo kale meel la dhaho Sarina. labada tuulo markay qabsadeen saakaba dagaal xoogan ayay sii qaadeen, waxayna qabsadeen meel la dhaho Tabrabak ama isha magac kale oo la dhaho meesha la dhaho Tashen. meeshaasi waxay ka tirsan tahay deegaanka loo yaqaano Gondar Zemin Zone ay ka tirsan tahay ama waqooyiga Gondar bay ka tirsan tahay. waxayna u jiraan magaalada Gondar hadda ciidamada TPLF aagaasi ka dagaalamaya saaka waxay u soo jirsadeen wax ka yar 106 kilomitir. hadda xogahan helaynana waxayba sheegayaan inay u jiraan 80 ilaa 70 kilomitir. ciidamadii militariga Ethiopia ay halkaas ku sugnaa iyo maleeshiyaadka Amxaaradana in ay cagta jabiyeen. waxaan rabaa inaan saaxiibadeena u sheego Santiago qabsashada magaalada Gondar ee deegaanka Amxaarada waxay ka dhigan tahay in uu furfurto dagaalka qoomiyadda Amxaaradu ay qayb ka tahay, sababtoo ah Amxaarada rasmiga ah ee Ethiopia degto ee kaniga adag ee dagaalanto ee waliba Tigreegu hadda ay sida weyn iskaga soo horjeedaan ama dagaalka abaabulkiisa ugu badan iska leh ama madaxda dalka Ethiopia inta badan ka soo baxda bay ka imaadaan laba deegaan bay ka imaadaan. waa meesha la yiraahdo Gondar iyo Gojam. maadaama aagaas ay ka imaadaan qabsashada Gondar ee TPLF waxay tusaale u noqon doontaa in qoomiyadda Amxaaradu ay bataatanba araxda ka jabto dhinaca kalena ay banayso garabka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. sidoo kale qabsashada Gondar hadda ay TPLF ku sii socoto waxay ka sii hormarinaysay maalmahan oo dhan fariin ay u dirayso dhalinyarada qoomiyadda Amxaarada faanada liyu booliska deegaanka Amxaarada. waxaabana la sheegayaaba TPLF-tu marka ay maqasho halkan qoomiyadda Amxaarada ciidankooda jooga inay ka wareegayso ciidamada militariga ay beegsanayso. taa marka macnaheedu waxa weeye maadaama hadda ku socdaan Gondar ku socdaan inay soo dhaweystaan qoomiyadda Amxaarada oo ay garab ka dhigtaan oo isku dayaan in ay labadooda heshiisiin karaan. xitaa waxaa la sheegay baabuurta TPLF-tu ay wadatay adeegsanaysa dagaal ku adeegsanayso in ay ku sawirtay amaba ku buufisay ama waxa weeye calaamad ahaan ugu samaysay calanka deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale calanka Tigreega iyagoo leh isma huri karo hayb quraynuna. marka maadaama ay saa sameynayaan waxay tusaale u tahay in ay Tigreegu hadda bedeleen istiraatiijiyadooda ay ku doonayeen inay ku qabsadaan deegaanka Humera oo ah dekada qalalan ee TPLF horaan ay u arkaysay in ay xiriir kala yeelan karto dalka Suudaan. dhanka waqooyiga gobolka Wallo xaaladeedu inta badan way iska degan tahay, laakiin dagaalo yar yar ayay iskaga hor imaanayaan labada dhinac. waxaadna moodaa dhinacan inay dawladda federaalku hadda ku awood badan tahay oo maadaama sanadkii hore dagaalkii ay soo qaadeen TPLF ay dhul badan ku qabsadeen dhinaca kalena magaalada Addis Ababa ay u soo jirsadeen wax ka yar 80 ilaa 90 kilomitir. hadda inaysan dawladdu doonaynin in waxa weeye aagaasi ay ka soo socdaan. dhinaca deegaanka Canfarta wax badan sa uga masii jiraan Santiago, laakiin meesha la isku fara saaray maryaha dhiigga la kala furtay waxa weeye aakhira la isku shubay waa xuduudka deegaanka Tigreega iyo sidoo kale dalka Eritrea. intaasi waxaa lagu darahayaa warbixino sheegahayo in TPLF ay dagaalka ku qabteen caruur yar yar oo 15 13 ilaa iyo 18 inta u dhaxaysa kuwaas oo dagaalka soo galiyay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki kadib markuu ku guul daraystay ciidamadii kuwii Ethiopia iyo kuwii Eritrea ciidamadii liyu booliska Amxaarada faanadii iyo dadkii la arunayo dhamanka ku guul daraysteen. dhinaca kale arrintan TPLF horay ayaa loogu eedeynayay inay caruur soo kala ay dagaalka soo gelisay oo waxa weeye ay qayb ka ahaayeen. Santiago waxaa xusid mudan dagaalkan intaynan xaaladiisa ka bixin in uu jiro tuhun ah in saraakiishii ugu sarsareysay ee Tigreega lagu laayay dagaalkan ama duqeymaha lagu laayo ama furimo hore dagaalka lagu laayay, laakiin xan waxa soo baxaysa
in raggii mas-uuliyiinta ay Tigreega hogaaminayay intoodii badnaa ay dagaalkan sanadkan ku baaba'een waana sababta keenayso in ay xabad joojin ku dhawaaqeen laakiin xogaan helayna waxaa la sheegayaa markays raggaasi baxeen inay dib wada hadal u galeen oo raggii rag kale lagu soo bedelay haddana ay dib TPLF ka soo abaabushay dowladda Itoobiya iyo Abiy Ahmedna hadda laftigooda waxay ku jiraan abaabulka ugu xooganaa ee ama ay maqala ku qabsan lahaayeen ama iyagaba lagu burburin lahaa waxaadna ogtahay TPLF cadaawadda ay u qabto madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki inuu ka yar yahay cadaawad ay u qabto Abiy Ahmed cadaawad badan oo ma qabto oo waxay og yihiin nin kursiga shalay ka qaatay berrina ay ka qaadan karaan inuu yahay dalna uu ka dhaxeeyo laakiin maanta ninka cadaawad u qabaan cunaha uga go'an yihiin ay rabaan in taliskiisa iyo dowladnimadiisa iyo nidaamkiisa oo dhanba ay burburiyaan oo ay cagta saaraan inuu yahay madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki wagaag waxaa soo baxaysay in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya hub casri iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka uu soo iibsaday hub aad u tiro badanna uu wadamo badan oo Turkiga iyo wadanka Iran inuu uga imaaday bal hubkii la keenay iyo sidoo kale diyaaradihii wax ma ka bedeli waayeen guulaha ay Tigreegu gaarayaan iyo ku soo socoshada ciidamada Tigreegu ay ku soo siqayaan caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa iyo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmarada Santiago sidaad ogtahayba diyaaradahan roonka diyaaradahan miiga helicopterka waxay wax ka qaban karaan ninka wato madaafiic iyo baabuur iyo kolonyooyin iyo xero ciidan oo degan yahay ama meel lagu bartilmaameedsada leh ama fadhiisimo leh laakiin nimankan TPLF dagaalkan hadda ku jiro ama waxa weeye waqooyigan Itoobiya dagaalka hadda ka wado waa niman garab-rarata ah oo qorigoodii iyo raashinkoodii iyo cuntadoodii iyo saraakiishoodii dhammaan waxay ku wada jiraan furimaha dagaalka marka nin socdo oo buuraha faranhayo oon istaagaynin oon fadhiisanaynin oon xero ciidan iyo meel loogu hagaagaba lahayn waxa weeye way adag tahay inta badan diyaarad inay wax ka qabato dhinaca kale diyaaraduhu duqaymaha inta badan ay geysanayaan waxayba ka geysanayaan goobo marka hore ay moodahayaan inay yihiin fadhiisimo TPLF ay deganaayeen laakiin TPLF inta badan ay sheegaysa inay ahaayeen waxa weeye goobo caafimaad kaniisado iyo sidoo kale goobo waxbarasho marka diyaaradihii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu soo iibsaday ama dagaalkani in uu wax kaga qabto uu ugu talagalay ee la sheegay inay ka degeen magaalada Casmara ee caasimada dalka Eritrea iyo sidoo kale magaalada Addis Ababa dagaalkan wax guul ama natiijo ah oo hadda la fili karo kuma aysan soo kordhinin marka laga reebo hal dhinac oo ah dhinacan deegaanka Humayra ama waqa Humayra marka laga reebo aagaaso inta badan ah dhul bannaan oo geeda aan lahayn buurana aan lahayn oo waxa weeye daleeda ah ayna dagaal halkaasi ka wadaan TPLF marka Santiago isku soo duuduubo diyaaradihii Itoobiya ay soo iibsatay droonkii iyo hawlihii loogu talagalay in TPLF wax lagaga qabto waxaad moodaa in waxa weeye ay tahay mid aan waxba lagaga qaban karin oo niman socdo oo waxa weeye aan istaagaynin aan waxba lagaga qaban karin marka laga yimaado waa Humayra oo iyadu ah dhul daleedo ama dhul bannaan ama dhul wid ah oo waxa weeye diyaaraddu si caadi ah sida qofka kale ay wax u dili karto ama wax u duqeyn karto ama ay wax u burburin karto marka laga yimaado tuhunkan ah in uu jiro in saraakiil ka tirsan TPLF lagu laayay dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka socday xuduudaha iyo sidoo kale duqeymo ay geysteen ciidamada dalka Itoobiya gaar ahaan warar waxaa jira soo baxay oo sheegayay in deegaanka Alamaata saraakiisha ugu sarsareysay TPLF oo shir ku jiray halkaas lagu duqeeyay kadibna intooda u badnaa halkaas lagu laayay wagaag dhinaca kale madaxda Tigreegu waxay ku eedeeyeen dagaalka dalka Itoobiya ka socday iyo sidoo kale xaaladda dalka Itoobiya inuu hagayo oo ka dambeeyo madaxweynaha dalka Eritrea isla markaana taliskii ciidamada dalka Itoobiya iyo kuwii Eritreaba uu maamulayo ninkani cimriga dheer ee loo yaqaano siyaasi Afwerki ee muddada dheer haysta wadanka Eritrea maxaa ka jira eedeynta Tigreegu ama madaxda Tigreegu ay eedeynayaan siyaasi Afwerki ku aadan in furimaha hore ee dagaalkii gabi ahaanba dalka Itoobiya inuu isagu maamulayo raayigan iyo dagaalkan xooganba oo isagu ka dambeeyo Santiago sidaad ogtahayba eed ma aha marka la leeyahay Siyaas Afwerki dagaalka ayuu qayb ka yahay ama sidoo kale waxa weeye ninka dagaalka ugu badan hagahayo waaba asaga sababtoo ah dowladda Itoobiya arrintaas way diiday laakiin dowladda Mareykanka ayaa war soo saartay cidda warka soo saartay ma aha TPLF waa dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay in ay ogtahay goobaha fadhiisimaha iyo sidoo kale aaga ay ka dagaalgalayaan ciidanka dalka Eritrea iyo sidoo kale waxa weeye saraakiisha Eritreanka ah ee ku sugan gudaha gobolka Tigreega waxay intaas oo kale ku dareen ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha geeska Afrika ayaana sheegay maanta in Mareykanku uu ka warhayo ciidamada Eritreanka ah ee ka soo gudbay xuduudda dalka Itoobiya sidoo kalena dagaalka ku gobolka Tigreega si weyn ayuu u cambaareeyay
qoraal uu bartiisa Facebook Twitterka ku faafiyey ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka lagu faafiyey waxa uu dhignaa waxaan la soconaa dhaqdhaqaaqyada ciidamada Eritrea ee ka socda xuduudka waan cambaaraynaynaa. Mike Hammer waxa uu sheegay in warfidiyaanada hadal kooban kadib safiirku uu tagay dalka Ethiopia uu si uu gacan uga geysto ama uu u fududeeyo wada hadallada nabadeed ee midowga Afrika uu hogaaminayo u dhaxeeya dowladda dhexe Ethiopia iyo ciidamada Tigreega. Dhammaan howlwadeennada shisheeye waa inay ixtiraamaan madax bannaanida dhuleed ee Ethiopia oo ay ka fogaadaan in ay huriyaan colaadda, ayuu yidhi. Ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan nabadeynta Ethiopia iyo sidoo kale TPLF oo isla iyadu laftigeedu Ethiopia ka mid ah dhinaca dowladda Eritrea eedeymaha loo soo jeediyey ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama aysan bixinin, waa ayna ka gaabsatay bataatanba arrinta la xidhiidha in ciidamadeedu ay ku sugan yihiin dalka Eritrea. Laakiin Santiago arrintaasi inta badanba ma qarsoono. TPLF-tuna horey waxayba usoo bandhigtay korneyl sare oo ka tirsanaa ciidamada dalka Eritrea kaasoo ay ku qabteen dagaaladii ka socday waqooyiga dalka Ethiopia. Marka eedeymahan Mareykanka iyo midowga Yurub iyo waxa weeye wadamada caalamka ay ku eedeynayaan in ciidamada Eritrean ay ku sugan yihiin gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan xuduudaha gobolka Tigreega wax iska cad bay ahayd mooyaane ma ahayn wax qarsoon. aad baad mahadsantahay. dhinaca kalena dowlad deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyayba waxaa ka taagnaa xiisad xooggan oo u dhaxaysa xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar, iyadoo dhanka kalena xukuumaddu ay ku baaqday wada tashi qaran oo la iskugu imaanay isla markaana ay ka soo qayb galayaan saamilada siyaasadeed xisbiyada mucaaradka iyo aqoon-yahanka waxgaradka dowlad deegaanka Soomaalida, balse ururada ugu waaweyn iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ugu waaweyn dowlad deegaanka Soomaalida ayaa qaarkood gaashaanka u daruuray sheegayna inaysan ka soo qayb galaynin shirka ay dowladdu ama xukuumaddu ay qaban qaadinayso. waxaan mar labaad su'aal ka weydiiyey saaxiibkay Faahiyo weli igula sugan stuudiyaha. Faahiyo, mar labaad soo dhawow. xaaladda dowlad deegaanka Soomaalida maxaa u dambeeyey, maxaase fashiliyey shirkii wada tashiga qaran ee xukuumaddu ay qaban qaadinaysay ee la doonayay in la iskugu keeno saamilada siyaasadeed iyo xisbiyada mucaaradka? Santiago aad baad u mahadsan tahay. Dhowr maalmood ka hor xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida koox isku sheegay in ay yihiin aqoon-yahano iyo xisbiyada mucaaradka ee dowlad deegaanka Soomaalida ka howlgalo waxay soo saareen war-saxaafadeed ku aadan in ay doonayaan qabashada shirweyne qaran oo la iskugu keenayo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan lagagana tashanhayo marxaladaha iyo sidoo kale caqabadaha haysto ee bulshada Soomaaliyeed. Ururadii sida weyn ooga soo muuqday waxaa ka mid ahaa ururka ONLF iyo sidoo kale ururka ama xisbiga FEB iyo koox aqoon-yahaniin ah oo isku sheegay in la yidhaahdo Xaldoon. waxay sheegeen in ay doonayaan in ay wada hadallo iyo sidoo kale xaaladaha ka jira hadda dalka gudihiisa ee lagu sameeyo, balse arrintaasi waxaa ganafka u daruuray dhinaca kalena si weyn uga soo horjeedsaday ururka ONLF oo maanta iyagu soo saaray war-saxaafadeed ku aadan arrintaasi. waxa ayna sheegeen in dowlad deegaanka Soomaalidu aysan xilligan ka talin karin arrimaha masiiriga ah ee u yaala bulshada Soomaaliyeed, sidoo kalena aan lagu aamini karin masiirka danta Soomaalida. dana khaasana ay ka leeyihiin shirkan ee uusan ahayn mid ay ku doonayaan in bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan la iskugu keeno. waxay intaasi ku dareen in xukuumaddu ay doonayso in ay joojoob, caburin, cagajuglayn, bahdilaad iyo sidoo kale in ay ka dhigto dad aan shirkaasi wax saameyn ku dhex lahayn oo iyagu iska dhex fadhiyo ama kursi waxa weeye kursi la kor saaray. marka isku soo duduba war-saxaafadeedka ONLF ilaa iyo hadda dowladdu wax wara kama aysan soo saarin. dhinaca kalena war aanu ka helayno magaalada Jigjiga wuxuu sheegayaa in waxa weeye xukuumaddu laftigeedu hadda ay diyaarinayso in ayba ku dhawaaqdo in shirkaasi dib loo dhigay maadaama ONLF ay bataatanba ka baxday, oo sidoo kalena ay sheegeen in uusan ahayn shir bulshada Soomaaliyeed uu u dhan yahay. dhinaca kale Ibraahim Dheere oo ah gudoomiyaha xisbiga FEB ee laanta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa la sheegayaa in uu diyaariyey war-saxaafadeed uu ku joojinayo shirkaasi, dhinaca kalena uu ku qaadacayo. taa hadday soo baxdana dee waxaa bataatanba fashilmi doono nidaamkii la doonahayey in ama lagu wada hadlo ama bulshada Soomaaliyeedba la isku keeno. isku soo duuduuba Mustafa Maxamed Cumar ama Mustafa Cagjar oo bilahan beledda dhacayay culaysyo siyaasadeed iyo iska hor imaadyo ka imanayay bulshada rayidka ah iyo sidoo kale aqoon-yahanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xilligan u muuqda mid bataatanba ku fashilmay dhinaca kalena ku guul daraystay in arrimaha masiiriga ah ee Soomaalida haysto uu guul ka keeno, iyadoon ognahay in waxa weeye dhul Soomaaliyeed ay la wareegeen qoomiyadda canfarta ciidamo liyu boolis iyo shacabna weli uu gacantooda ku jiro oo ilaa iyo hadda aan waxba laga qabanin. aad iyo aad baad umahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa Faahiye oo inala socodsiinayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Ethiopia. daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin. warkan warka xigeentan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa amaana Allah.